maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo odayga la yidhaha xasan daahir aweys waa rabaa inaan ka hadlo daawashadiina haddii nagu cusubtaa subscribe-ka noo saara like-ta ku dara haddaan ku socdo xasan daahir aweys wiilkii taliyaha u dhintay farxaan qaroole markii uu ka hadlayay waa qosqoslay waa faraxsanaa waxaad u malaynaysaa inuu dilay wiil uu dhalay inuu ka dilay baad u malaynaysaa farxaan qaroole wiil uu dhalay inuu ka dilay baad u malaynaysaa marka ninka la yidhaha xasan daahir aweys waa faraxsanaa waa qoslay wuxuuna yiri hadaladiisa kamid ahaa nin taliya laga dhigay oo ciidan ku jira oo loo diray howlgal hadduu dhinto dee awalba waa shaqadiisa ahayd haddii isagu wax dilayna shaqadiisa ahayd farxaan qaroole waxaa ka yaabanahay haddii la dilo u dhintay waxaa ka yaabanahay hadalkiisa la wado iyo tacsiyeenta loo tacsiyeenay hadalkaasuu yiri ninka la yihahdo xasan daahir aweys bal fiiriya soomaaliya waa 70 jir caqligiisa intaa la-eg micnii qolofkii wuu ka koray laakiinse caqligii halkaa markuu leeyay maxaa loogu tacsiyen waayo ilaahuma madaxweyne ahaado ilaahuma taliye ahaado hadduu dhinto dad buu ka dhintay soomaalidii jecleed baa u tacsiyeynaysa waalidkiisaa loo tacsiyeynayaa dad baa dhalay hadda waxaa leeyahy wiil uu dhalay baa la dilay haye xanuunkiyuu gaaray marka asagu gaaray marka anaguna waxaa leynaa allah u naxariisto wiilkiisa oo laguma farxayo laakiinse xasan daahir aweys wiilkiisa si uu uga naxayo waa dadka wiilashooda uga naxaya hadday ka dhintaan farxaan qaroolena waalidkiisa uga naxaya sidaas oo kale dadkii jeclaa soomaalidii jeclay si uu wax u maamuli jiray suu markii argagixisada hoteelada markay soo weerarto suu dhaqsadiiba ciidanka intuu u gasho hoteelada u dhihi jiray argagixisada lasoo afjaro oo usoo afjari jiray argagixisada weerarkoodii oo dadka uu hoteelada u badbaadin jiray bay dadku jeclaadeen iyo si uu u ahaa nin aan ogolayn inuu lacag qaato dowladda ka hor yimaado waxaasoo dhan nin aan ogolayn buu ahaa waa ninkii la yiri nimaa ka soo baxay farxaan qaroole booska aad fadhiisatay nimaa ka shalay ka soo baxay lugaa dhiiqa lagu gashay madaxweynaha dhaba arkisa xasan sheekh maxamed waa leedahay la leeyahay oo ninkaa weyna baa hadalkaa ku hadlayay waa ninkii diiday ninka la yidhaha farxaan qaroole waa ninkii diiday oo yiri lacag qaadan mayo haye waxaan leeyahay ninka la dhaho saadiq john wuxuu qaatay 10 milyan buu qaataa layihi inuu dowladda farmaajo madaxweynaha ka hor yimaado haye waana diiday ninkaa la yidhaahdo farxaan qaroole maxaa yeelay waa laaluush waa xaaraan waa uu diiday wuxuu yihi dowladdeedaa la shaqeynaya haye hadda waxaa lagu dilay waxaa weye dowladdiisii uu la shaqeynayaa lagu dilay madaxweyne farmaajo dowladdii farmaajo la shaqeynayaa lagu dilay inkastoo la dhahayay waxaa loo dilay odayga la dhihi jiray gaane markii hoteelka lagu weeraray buu dilaa la dhahayay ma uu dilin argagixisaa gashay wixii hoteelka jooga ayagaa dilay asagana waa uu tegay ciidan ku gashay dee ciidanka awal baa argagixisada meesha ka saaraya laakiinse ma uusa dilin sidaa dal leeyahay maasaadi waxa ka dambeeyaa lihi gabaru gaani dhalay dadkaas laakiin sheekadu saas waa ka weyn tahay sheekada waxaa weeye hadalkii xasan sheekh maxamuud buu hogaansami waayey oo ahaa adeer oo dhiiqaa lagu halagu gashay meesha kasoo bax kaasi uu hogaansami waayey nin wuxuu noqday taliyaha waddankiisii inuu u dhinto ku talagalay oo talinimadiisina daacaday ka taho laaluusha reemin buu noqday farxaan qaroole saa darteedaan loo dilay ninka afka isku riixan ee mahasaa la yidhaahdo baana u cilqabay markay ciidamada u diidi jiray inuu galo baarlamaanka howlkooda yuu dhaaran jiro o dhihi jira mar baa argoosanaya marka maha salaad baa hawshaas ka dambeeya isagana wiilkaa u yeeray isagoo jira qurbaha isaa u yeeray wiilkii ku xigoo diiday inuu meeshaa galcad la yiraahdo inuu yimaado maha salaad ka diidayna xilka wuxuu yiri iska dhigi dareyska hadda waa nooyaa laakiinse wiilkan waqtigiisaa dhammaaday hadalku waa uu yaalay waa tegay qof daacad uu ahaa wuxuu u maleynayay howlgal runa laakiinse howlgalkan wuxuu ahaa howlgal farxaan qaroole lagu soo afjarayay xilkiisa
oo la rabay booska in looga baneeyo ninkaa la yiraahdo saadiq john. saadiq johnna hadda haddii la doorto, saadiq john haddii la doorto kursiga lasoo fariisiyo, soomaalina waa og tahay inuusan sharaf meesha ku lahayn oo yahay nin qabiil oosan soomaali wax u qabanaynin, qabiilkiisa u shaqeynayo. soomaalina ma rabto nin qabiil adeegsan karaa, soomaali ma rabto. saadiq john wuxuu yahay ma laha. 10 milyan oo xaaraana haddii la siiyey saadiq john, waa isagii lasoo sawiri jiray isagoo galguduud jeefageed hoostiisa oo koksan oo caata ah baa lasoo sawiri jira oo baaba'san. 10 milyan hadday xalaal tahay qurux baa ka muuqan lahayd. saadiq john wuxuu yahay ma jirto, waa nin sidaa warka ku maqlay tagsiile ingiriis ka ahaa oo dambiye waddanka aggaloo lasoo tuuray. haddee wixii dibadaha laga soo tuuray baa hadda dalkii dadka korka ka haysta wax loo dhiibayaa xil. qof caalamkiiba laga soo nacay oo loo soo adkeysan waayey, soomaali waxaa qabanaya waa may. marka saadiq john haddii xilkaa loo dhiibana dee soomaaliya waxaan oran lahaa waa iska garan kartaa meesha aysan dowlad jirin. taliya xijaar waxaan leeyahay ninka xasan sheekh maxamuude adeero adeerkaaba hay soo bax markuu dhahayey lugaha dhiiqa lagu gashay, markuu ku dhahayay wiilka dhao odawaa iyo dadkaas oo dhan markuu dhahayay xijaarow wuxuu dhahay anigu lama hadlayuu yiri, xijaar iyo cid kale lama hadlayuu yiri, macnihii waa uu ku duray. marka waxaan ku leeyahay xijaarow taliya fiican baa tahay, adig iyo odawaa xasan sheekh maxamuud iyo ninkaas gafuurka leeleexinayo mahasaa leeyahay. naftiina is wax u geysanna meeshaas dowlad ma jirtay, iskaga tago laftiina sagareysta oo dhow walba meeshu ka yimaada ha aado, adduunkiina kala gala. waxa meeshaan taliya loo noqdo ma jiraan. cusliyaal baa liyi odawaa oo kaagees dagaalamayaan baa la yiri. marka odawaana dee waa uu shakiyey, laakiinse odawaayo waxaa ku leeyahay macawislayaasha laftigooda baa mahasalaado kii ku dil lahaa uu kugu soo qarinaya. khatar wey. maxaa macawislayaal keenay hadduu run sheegayo oo argixiso loola dirirayo ciidamada qoran ee dowladda maa loo diro argixisada. macawisle maxaa keenay? waxaa weeye argixisada inay kusoo dhuumato lagugu dilaa raba odawaayo. meeshaas naftaada kaaga muhiimsan, xilka ay haysa naftaada kaaga muhiimsan. dadkan liitay inta xilka hayaan xasan sheekh maxamuud iyo inta ka hooseysa ilaa caqli iskuma dhaabaan inta xilka hayaan. waxaan ku dhihi lahaa in adeero naftaada saargarayso. waxba xil ha wareejin, wax xil lagu wareejiyo meesha ma joogaysaa, madaxweyne ma jooge. waa qofka xasan aad aragtid adoo xilkiiba haya waddanka iskaga bax meesha doonta aad ama gurigaaga aad. taliya xijaar waxaan leeyahay meesha iskaga taga adeero adna yuusan xasan sheekh maxamuud farmaajo la shaqeyn jiray buu kugu taargesanayaa. yuusan ku dhibaateynin, yuusan ku tilmaamsanna meesha iskaga tag. dowlad meesha ma jirto, meeshaan caalamkii oo dhan ba arkay. dowlad goboleedyaashana gaar bay isku maamulayaan. xamarna haddii faraha laga qaado baalayaashiisa markiiba fiiqanayaan, birahana waa la baxayaan, dabacadoodii weye. masar bayna u eebiyen doonaan. marka dadka ayagaas cuni doonee waxaan oran lahaa xijaar iyo odawaayo naftiina saargareysta oo cadowkaa iska ilaaliya oo uga taga meesha. barnaamijka mataalkaasa ku joojinaya daawashadiina waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin. waxaana idin leeyahay kulligaa cimri dheer caafimaad fiican ilaahay hana siiyo. waxaana leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. nabadeey.